baaritaanada la sameeyay dhammaan intii uu joogay Abiy Ahmed Cali waxay muujinayaan duulaamo qoomiyadaysan oo uu ku qaaday deegaanka Soomaalida ee ku teedsan xadka qoomiyadda Oromada tan iyo ka soo dhaxbixiisii xisbigii la kala diray ee OPDO sargaal ciidan oo ku lug yeeshay xasuuqyo lagu laayay rayid badan oo Soomaaliyeed tan iyo intii uu ahaa ku-xigeenka Lama Magarsa madaxweynihii deegaanka Oromada iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenkii xisbiga OPDO oo qayb ka ahaa IBRDF dhacdooyin qalbi taabad ah oo ka dhacay deegaanka Awaday oo maalin 60 qof oo ganacsato Soomaaliyeed ay ku xasuuqeen maamulkiisa iyo duulaamo isrisifaynaha oo ay ka sameeyeen balbalayti halkaasoo kumanaan Soomaali ah hantidoodii ay u qaybiyeen koox Oromo ah iyo sidoo kale weerarada joogtada ah ee ka socda nawaaxiga gobolka Faafan oo ay ku taalo caasimadda deegaanka Soomaalida oo qorshayaal halis ah uu ka wado Abiy Ahmed kuwaasoo ay ku jiraan biyo xidheeno iyo qodida ceelasha shidaalka Ogaadeniya 2026 mar kale su'aal adag ayaa Soomaalida looga baahan yahay ka jawaabidooda kuwaasoo ah duulaankiisa dhulboob khayraad iyo duulaankiisa taariikheed oo ka bilaabay tan iyo 2018 noqoshadiisii ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay Oroma ee soo mara taariikhda Itoobiya waxaynu dul istaagaynaa 7 weydiimood oo u baahan ka jawaabid Abiy Ahmed iyo himiladiisa dhul balaadhsi joogitaanka maamulkiisa Oromada xasuuqi dhacay intii uu xilka ka hayay deegaanka Oromada dib soo celinta dhulka Candhuftu Cadaytu iyo Garbaciise baabi'inta awoodda xisbiyada siyaasadeed ee Soomaalida qorshihiisii taala dhiska ciidankii dhergiga ee Kaaraamardha iyo mashruuca tamarta ee Ayshaca dib u eegidda iyo khudbadaha Abiy Ahmed waxa ay daaran yihiin ka diyaar garowga inta uu safulin mashruuca halista ah ee qorshaha Oromada waxaan ahay Shucayb Cumar aan dib idinku celiyo falanqayn toos ah oo ka socota Ona iyo Mustafa Maxamed Cilmi Mustafa aad bad u mahadsantihiin waad si kooban bad oo la socoteen bal faahfaahinteena waxa uu khuseeyo barnaamijkeena tooska ah ee Ona iyo sidoo kale ku eegitaanka mowduuca ugu muhiimsan ee la xiriira qabsashada Abiy Ahmed uu qabanayo shir weyn oo ugu yeeray wadatashi qaran oo ka socda Ethiopia marka toos baan u galaynaa barnaamijkeena gudaha ballaaran waxaan ugu horeynayaa marka hore bal inaan soo dhaweeyo injineer Axmed Cabsiye gudoomiye Axmed Cabsiye soo dhawow Ona ku soo dhawow bal waxaad fiirsaa waxa ay daaran tahay ugu horeyn adoo si kooban bal dadka faahfaahin ka siinaya himilooyinkiisa Abiy Ahmed ku aadan geyiga Soomaalida iyo damiciisa Abiy Ahmed بسم الله الرحمن الرحيم واد ما سنتها مصطفى يا دمان بهذا أنا يا دمان مرتوان السلامة يا مرصاحبة يا قال قيب قادنا يا برنامج كتودي أي أوه ريان دكتور بوبال محمد فارح يا قبل ولا شينا يا دمان نياش كلنا موعود الشيء هذا كل باللعبة كل واحد ملنا يا مصطفى وفي إسياني قاضب كأه أبي أحمد يهم لذي بالبلارسي أنتي شغي معمول كأرمضة هذا كل باللعبة hor intii aanun imanin ra'iisul wasaarenimada waqtigii 2018 Abiy Ahmed waxa uu ka tirsanaa hogaanka ururka Oromada oo loo yaqaan Oromo People's Democratic Organization isaga oo soo qabtay xilal kala duwan oo ay kamid yihiin madaxa horumarinta magaalooyinka Oromiya wasiirka sayniska iyo technology-ga madaxweyne ku-xigeenka dawladda Oromiya intii uu xilkaas hayay waxa uu kamid ahaa siyaasiyiinta ugu saameynta badan ee hogaaminayay isbedelkii siyaasadeed ee ka dhacay Oromia iyo Ethiopia oo dhan sanadkii intii u dhaxaysay sanadihii 2015 ilaa 2018 ee xilka lagaga tuuray maamulkii Hailemariam ay dabada ku hayeen ay dabada ka taagnaayeen TPLF sidoo kale qaar kamid ah falanqeeyayaasha siyaasadda iyo mucaaradka Ethiopia ee aan ahayn Oromadu waxa ay ku doodaan in fikir siyaasadeed ee loo yaqaanay Oromuma ee ujeedadiisu ahayd in la xoojiyo doorka siyaasadeed iyo juqraafiyada Oromada Ethiopia taageerayaasha qeyro waxa ay ku tilmaamaan dhaqdhaqaaqaas dib loogu soo celinayo xuquuqda siyaasadeed iyo dhuleed ee dhaqamada Oromada iyo dhammaan dhulalkooda iyada oo ay ujeedadiisu ahayd in la hirgeliyo dhul balaarsi iyo muran xuduudeed oo daba dheeraaday muddo dheer la socday waxaa sidoo kale jiray oo aan rabaa dadka inaan la wadaago hadallo iyo doodo lagu baahiyay
warbaahinada iyo baraha bulshada oo ay ka dambeeyeen abiy axmed iyo siyaasiyiin waaweyn oo kuwa oromada ku jiraan iyo qaar axmaarada aba kuwaasoo u dhexeeyey kuwaasoo ka hadlayey ama khuseeyey dhul la yidhaahdo dhul ballaarsi ku salaysan ilaa balcad hargeysa saylac iyo jamhuuriyadda jabuuti sidaa daraaddeed mar haddii arrintan lagu soo qaadayo doodaha cilmiyeed amaba midda siyaasadeed waxaa habboon in loo fiirsado ama si dhow loogu fiirsado ujeedooyinka iyo hadafyada uu ku salaysan yahay hadafka iyo maabka siyaasadeed ee abiyu dooda siyaasadeed ee dhulka iyo wajahaada ummadda Soomaaliyeed iyo Etoobiyada kale oo la rabo dhulkeeda in la boobo haddaba in dheer garadka oromadu waxa ay uu abiyu hormuudka u yahay waxa ay isla qaateen in ay dawladda la wareegaan xilligaas lana baabi'iyo nidaamka federaalka ee ku dhisan qoomiyadaha loona bedelo nidaam ku dhisan juqraafi nidaam ku dhisan dhulkaasoo ah in ujeedadiisu ay tahay in dhammaan kilada oo dhan la hoosgeeyo maamulada oo dhan la hoosgeeyo nidaam juqraafi ah oo ay oromadu hormood ka tahay qayb walba oromo lagu daro Soomaali oromo lagu daro Anfar oromo lagu daro Benishanguul Gumuz iyo konflikto oromo lagu daro Axmaara oromo lagu daro sidaa loo qaybiyo wadanka ayay ujeedada ugu weyn markaa ahayd haddaba guud ahaan haddii aan soo gunaado halkan siyaasadda haddii markaan dib u milicsanayno abiyu kama bilaabin intuu xilka hayay waxay ahayd wax oromadu ka fikireen inay ummadda Soomaaliyeed dhulkeeda iyo dhulkeeda boobaan ta gudaha ku jirta iyo ta banaanka joogta ayay ahayd haddaba waxa lagu gunaanadi karaa si loo fahmo siyaasadda ku salaysan xasuuqa Soomaalida iyo boobista dhulkeeda abiy axmed ka hor sanadihii 2018 waxaa muhiim ah in la eego doorkii uu ku lahaa muranka xuduudaha iyo xasuuqii shacabka Soomaaliyeed loogu geysto goobo badan oo kala duwan ee ay geysteen maamulkii oromada uu markaasi joogay taasi waxay ku tusinaysaa ficiladiisa maanta uu wado marka ayaa la fahmi karaa halka uu u socdo iyo ujeedadu leeyahay waana idin salaamaya waana mahadsantihiin aad baad u mahadsantahay adaa mudan gudoomiye injineer axmed cabsiye run ahaantii mawduucyadeenu waa hal mawduuc oo guda ballaaran oo dhammaantood way isku xidhan yihiin waanan waxaan u eegaynaa taxliilin iyo daraasadayn ah oo cilmiyeysan aad baadan u mahadsantihiin daawadayaasha sida tooska ugu xidhan oona waa barnaamij live idin kaga imaalinaya studioga annagoon ku falanqaynayno bal waxa uu abiye ku qabsanayo shirweynaha aad wado iyo nooca ay daaran tahay martida aad magacyadooda aragtaan baa ilaa jooga waadan halkaas aadan kala haysanaysa barnaamijka waxaan markan aadayaa maxamed faarax siyaasi aqoon-yahan ruug caddaa ah oo wax badan kala socda bal xaaladda gobolka Soomaaliyeed ee Soomaali galbeed halka ay maanta wax marayaan su'aasha aan adigu kugu socdo bal waxaan rabaa inaan wax badan aad ooga ifiso dadka adoo daqiiqadaha qaadanaya xasuuqyadii ka dhacay intii uu xilka hayay deegaanka oromada abiye iyo ilaa hanta intii uu joogaba bal waan ognahay balbaleeti iyo Guradaamoole iyo Mooyaale iyo Awaday iyo doorkii dawladda federaalka Itoobiya ee uu hogaaminayay abiy axmed ay ku lahayd iyo sidoo kale doorkii uu ku lahaa intuu joogay kursiga madaxweyne ku-xigeenka ee deegaanka oromada waxyaalo badan baa ilaa waqtiyadan uu siyaasadda ku jiray abiy axmed cali Soomaalida dhib badan baa gaaray ilaa haddana ku socda markii la eego guud ahaan xuduudaha bal xasuuqyadaas bal si kooban adoo u faahfaahinaya marka aan dib u jilicsano daraasad ahaan maxay u muuqdaan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا سلام دمانتين أخيارتا أن ضد وذاقين ومدى الصومالية دام ومدى جيس أفريقيا دام مدى ديجان الصومالية أرنتا تاني قصيصو دمانتين وأنا سلامية بعد السلام أنت وموضوع هذه مهم لحديدة استراتيجية السياسة إثيوبيا saddexdii maamul ee qowmiyadaha Itoobiya ee kala gacanta ku dhigay Amxaar Tigray iyo Oromo oo maanta ugu dambayso iyo Soomaalida waxa ka dhaxeeya ama ummadaha Itoobiya ee dawladahani ay maamulaan waxa ka dhaxeeya iyo dhacdooyinkii dhacay ee dabcan siyaasadeed ee mahadhada reebay aan idhaahdee marka hore waxa horta muhiim ah inaynu fahanno baraarug ay ummadda Soomaaliyeed ay baraarug yeelato hadday Itoobiyaan ahaanaysana baraarug ay ku yeelato haddii may ee dhan kale u kacayso
aragti kaloo mustaqbala ay rabto inay yeelatana baraarug ay yeelato waa mid aad iyo aad muhiim u ah ummada haddaan baraarug lahayn jawiga markaa jira iyo ka mustaqbalka loo socdo midna waxba ka goyn mayso taas inaan fahna horta muhiim bay tahay waayahay haddaan soo noqdo mawduuca ama su'aalahaaga dhacdooyinkii xasuuq ahaa ee dhacay abi axmed inta uu ra'iisul wasaaraha yahay iyo intuu deegaanka oromada wax ka ah dhacdooyinkii dhacay waa dhacdooyin taariikh ku xusan oo ka duwan taariikhihii ka horreeyey waqtigii Hayle Selassie iyo dargii waqtigii ay jireen ka duwan oo yacni dhacdooyinka maanta way archive ay ku wada jiraan waa wada documentary halka kuwii hore ay ahayd nin nasiib u yeeshay inuu helo video kooban oo la duubay oo idaacaduhu ay duubeen laakiin maanta maadaama lagu jiro qarnigii 21aad teknolojiyadu aan adeegsanayno heerka ay marayso aad bay u sahlan tahay in la helo macluumaadka la xiriira arrintan haddaba magaalooyinka iyo deegaanada aad ka dhawaajisay Soomaaliyeed wax la filayay bay ahayd xasuuqaas inuu dhaco wax la filayay bay ahayd inta ay magaalo ama deegaan aad ka dhawaajisay oo dhan xasuuqa ka dhacay Itoobiya kana dhicin waxay u dhaceen inay Soomaali ahaayeen ba u dhaceen dabcan nasiib darro gaara ayay tahay qofka Itoobiyaanka ee Soomaaligii in ay nasiib darro noqoto in la isku xili kari waayo in haddaad Itoobiyaanimo haddaad aad rabtana in xaqaagii aad hesho maya xaqaagii haddaad weydana sababta kaliya aad xaqaaga u waayso inay Soomaali tahay labadaa dhacdo ee isku xidhani qofka Soomaaliga ee Itoobiya jooga nasiib darro gaar ayay ku tahay taasi waa mid jirta magaalooyinka aad tilmaantay xasuuqa ka dhacay waxay ku hoos dhaceen maamulka Itoobiya ee hadda jira abi axmed uu qaybta ka yahay iyo intii hore uu deegaanka oromada qaybta ka ahaa taariikhdaasi isaga ayay ku suntan tahay maxay u dhaceen waa su'aashaan isweydiinayno waxaa la yidhaahaa inaynu fahanno sida aynu nahay sababta aynu nahay halka aan joogno sababta aan soo gaarnay iyo wixii la yeeli lahaa oo arrin kala ah Soomaali marka la yahay Itoobiyana aad rabto inaad ka hadasho waa inaad fahansan tahay horta geographical ahaan iyo ummad ahaan halka loo eego cultural iyo social identity ga ummadda Soomaalida ay leedahay waa ka duwan tahay ummadaha kale Itoobiya marka loo fiiriyo dhacdada waxa caqabadaha keenaya qayb bay ka tahay maadaama Soomaalidu identity-goodu ay mid tahay extreme ay tahay kolka loo fiiriyo sida extreme ku wiina aad ay ugu adag yihiin bulsho ahaanna sida isku haystaan taasi iyo qodobka saddexaad oo ah deegaankan ay Soomaalidu degan tahay oo ah deegaanka Itoobiya waa haddii ay Itoobiya sii jirteen ugu muhiimsan inay jiritaanka Itoobiya halbowlaha u ah waxa keenaya in ummadda Soomaaliyeed la xasuuqo damacu halku ka socdo waxa weeye inay Soomaali yihiin culture-ka ay leeyihiin bulshada adag ay leeyihiin iyo deegaankan ay ku fadhiyaan haddaba waxay u taallaa ummadda Soomaaliyeed ee Itoobiya degan inay ama Itoobiyanimo hadday rabaan inay wax ku qaybtamaan inay u soo jeedaan baraarug gaar ah ay yeeshaan cadkooga ay dhacsadaan qaladaadka dhacdada ee joogtada ee xasuuqa ee ummadaha kale aan ku dhicinna in ay diidaan si sharci darraba wax alla wax kasta oo la xiriira in qaabkii wax loo diidi lahaa ee la xiriira yacni iyagoo adeegsanaya moral value ummada ay leedahay in la diido waa waxa kaliya lagu badbaadi karo haddaba dhacdooyinkan ka dhacay magaalooyinka ka dhacay xitaa Soomaalidii oromada la deganeed in la soo barakiciyay Soomaalidii kale deegaanadooda deganeed barakaca ummadaha Soomaaliyeed ee oromada la deganaa mid lamid ah oo ku dhacay iyagoo deegaanka ugu degan waa halka aan rabo inaan isku xiro qofka Soomaaligii wuxuu dib u mudanayaa inuu Soomaali yahay ayuu dib u mudanaya sababtoo dhaqan bay Soomaalidu leedahay qofka aan Soomaali ahayn in Soomaalida dhex degan inaana la taaban oo marti yahay xaqa qofka muwaadinka Soomaaliga halka degan uu leeyahay laakiin waxaan aragnay dadkii Soomaalida oromada dhex deganaa in la soo barakiciyay inay Soomaali ahay cid ka hadashay oo xaqooga u dhacisay ay jirin maanta duleedka jiga ay degan yihiin kuwii kale deegaanadoodii deganaa garbaciisi iyo magaalooyinka kale la xidhiidha dhacdooyinka ku dhacay nasiib darradaas ay ugu dhaceen haddaba taariikh xumadaas ay Itoobiya jirtee waxaa Soomaalida u yaala inay baraaruga yeeshaan intaasaan kaga baxay aad baad u mahadsan tahay mudanayaasha waxaan xasuusin lahaa inay soo koobaan mar walba oo aynu su'aal aan weydiino aad baad u mahadsan tahay si fiican baad Maxamed Faarax aad tabintan tooska aad uga qayb qaadanayso aad u faahfaahisay waxa ka dhacay guud ahaan xuduudaha deegaanka Soomaalida iyo gudahaba xasuuqyada adag ee ku socda dadka Soomaaliyeed ilaa hadda cid
ka hadlaysa oo si sharci dawladeed ah ooga hadlaysa aan lahayn oo Soomaali dawlad ku matalayso dawlad goboleedka marka dib waxaan ugu laabanayaa aan su'aashayda ugu imaanayaa Dr. Abdi Bubal bal waxaynu ognahay Soomaalida waxa ka maqan dhul weyn oo dhinac walba ah ilaa cirif to cirif dhulbood weyn baa Soomaalida ku dhacay kuwa hadda laga qaaday kuwa xilliyada hore laga qaaday haba u dambayso gacan ka baxa Soomaalida dhulka Canfur iyo Cadeytu iyo Garbaciise magaalooyin hore waaweyn taariikhda Soomaalida hore baa looga qaaday kuwana hadda ka maqan yihiin bal sidee dhulka loo soo celin karaa mise muxuu yahay doorka ay ku leeyihiin maamulka hadda deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale matalaada Soomaalida ku matasha nidaamkan hadda BB-da haba ugu horeeyaan Mustafa Maxamed Cumar oo haysta deegaanka Soomaalida iyo Aadan Faaraxo xisbiga BB awood badan oo ah xisbiga kaliya ee xoog ku haysta Itoobiya haysta awood badan ku dhaxlay bal su'aalahaas oo isa saaran sidoo aragtaadu وأسلامي بهذا أنا إيو ضدك الصوماليات أرت سؤال شانسي جوابتيدو يدو قوضو محوية ضدك الصومالي بكيغا وحال السوعلين كرا مركي اللي هلو ضد صومالي أو حرقة أو ضدك يسمى تلا وضدك الصومالي ما هنا عدك على أن يعني أجوجين وحي كم مكان أم بسياحة هانو دبفدين أمبال السوعلين كرا marka su'aasha kooban way jawaabteedu lama soo celin karo ilaa inta la haysto nin matalaadiisu ay tahay inuu u shaqeeyo ninka aradkilo fadhiyo amba abi hajoogo oo BB-da oramada ha u shaqeeyo amba TPLF iyo BRDF ha u shaqeeyo marka nin dadkiisa aan matalin oo ku xidhan ninka Addis Ababa joogo intuu joogo aaminsanayn dad Soomaaliyeed iyo dhul Soomaaliyeed oo u matalo oo u difaaco dhulka lama soo celin karo saddex sifada dhulka Soomaalida waa lagu qaatay sifada koobaad waxay ahayd dastuurka in la baro oo la marahbaabiyo habraaci lagu kala baxayay marka Itoobiya dhul la isku qabto sidii 2004 wixii ka dhacay 400 oo tuulo in lagu qaato oo la yiraahdo wax laga qabtay doorasho taas waxa looga daba tagi karaa doorasho xaq iyo xalaal Itoobiya kama dhacdo doorasho xalaalina ma jiro xisbiga BRDF talada hayay waxa la tartamay xisbi Soomaaliya oo iska awood daran oo aan ku jirin nidaamka marka wax balance amba isdheelitirnaan ma jirin doorasho lagu midaysan ma jirin waxba kama jiraan weeye doorashadaas in dib loogu laamay tahay ornaantii dadka kale ee oo miraa kala booramad marka la shaqeysay qoranay wax fiican baa la sameeyay maadaama dul badan hoos keenay talabaad dhulka lagu qaatay waxay sharci daro in warqada Cabdi Ile iyo Aadan Faarax ay saxeexeen iyo Cabdi Xakiim nin la yiraahdo iyo odaga afayeenka baarlamaanka ahaa ee Cabdirashiid oo iyagu sharciga Itoobiya ku jirin ahaa oo nin wuxuu jeeb kala soo baxay marka qoraalkaasi dhul Itoobiya lagu kala qaadan saxeex dad lagu kala qaato istaraatiijiga dhulka marka waa Garbaciise iyo Cundufiya Cadeyti iyaa kamid ahaa dhulkii Soomaalida si khaldan looga qaatay qaybtu saddexaad imika intuu abiye dhacay 8 sano u dambeeyay waxay ahayd xoog in lagu qaato oo Cundufiya Cadeyti Garbaciise 500 kilomitir oo dharar ah iyo balaac ilaa 200 kilomitir 80 goob ceelo oo biyood 12 duulo iyo 3 magaalo waaweyn ilaa 200 sida UN OCHA ay qortay dad laga barakiciyay inay dhulkii ku laamin ciidanka Itoobiya iyo abiyi iyo BB-da ay qorsheeyeen Mustafa Cagjar iyo Aadan Faarax iyo ragga joogana iyo Ibrahim Cusmaan ay toos uga qayb qaateen oo ay ku gateen kursi oo ay metelin dadka inay difaacaan booliiska Soomaalida masaakiinta lagu burburiyay dad ilaa 6,000 oo qof ay ku dhinteen dhowr kun oo booliis ay ku dhinteen imikana dhulkii dadkii bay maqan yihiin oo xoog bay taas ku timiday iyadana taas waxa weey kow in la helo sharci lagu xisaabtamo nimanka dambiilayaasha oo Garbaciise xasuuq ka dhacay 400 oo dumar iyo ciyaal ay ku dhinteen iyo dadkii soo barakacay Mustafa Aadan Faarax iyo nimankii booliiska waqtiga hogaaminayay iyo xafiiska nabadgelyada in lagu xisaabtamo oo ay mas'uul ka yihiin burburkaas ciidanka Itoobiya oo ka xasuuq ka qayb qaatay abiy iyo OBDO oromada oo iyaguna masar mangale iyo nimankii cafarta fuliyay in horta sharci lagu xisaabtamo in dadkaasi dhulkoodii si nabad ah iyo si sharci ay ugu laamaan kadibna in dadka Soomaaliyeed waxa ka dhaxeeya dadka kale ee nin iyo dhulkiisa halkii loogu yimid 1990 inay xuduud ahaato in lagu hadlo waxaan ku soo gabagabeynaya dadka Soomaali dhulkiisa iyo qadiyadiisu waxay badbaadi markii la helo urur siyaasadeed oo xor ah oo dadka Soomaali kaliya matala
dadka Soomaaliyeed keliyana u ah dadka la xisaabtama ee ay mas'uul iyo xil ka raadsadaan ee buurta Addis Ababa ninka jooga ee kolla afamxaar istaraatiijiyada afxaar ka sheekeysada Mustafa Cagdar kolla dad Soomaaliya dig Soomaali baan lahayn sida Aadan Faarax iyo Axmed Shariif duulkaasi nimankaasi iyo kuwa dirnaba matalaba imaka nimankaasi markay ka baxaan iyo dirnaba iyadna on kusoo gabagabeynaya iyadna in si sharci darra oo dastuurka ku dirin in iyada dadka Soomaaliyeed imaka uu abiy rabo inuu sharci dastuur u sameeyo oo uu iyadna dadka Soomaali si sharci dirnaba bila sharci weeye abaysa in la yiraahdo baa qorqoray marka intaas aan kusoo guraanadii waa laga dabaqdaban karaa saddexdaas sifeed dadka Soomaali lagu qaatay marka la helay matalaad dad siyaasiyiin iyo xisbiyo xor ah oo dadka Soomaali matala aan kugu soo ceshay waa maanta adiga mudan Dr. Cabdi Buubaal faahfaahin badan oo ka hayso xogta galbeedka city iyo xuduudaha deegaanka Soomaalida iyo damacan ku aadan abiye iyo nidaamkan hadda talada haysta iyo nidaamka horeba oo faahfaahsan baad bixisay aad baad u mahadsantahay su'aalo ayaa inoo yaallo oo aynu sidoo kale qof weydiin doonaa u qaybin doonaa su'aalo si dad gaar ah ku socda oo la weydiinayo iyo su'aalo si jamacaba Engineer Faisal baan markan u imaanayaa Engineer Faisal adigu balseed u aragtaa sheegashooyinka Abiy Ahmed sida taalooyin ciidankii dargiga ee Kaaraamardho iyo mashruuca tamarta ay shico oo mashruuc asagana jira iyo inuu Abiy mar walba la soo taagan yahay in goobihii taariikhiga Soomaalida ahaa in uu taalooyin uga dhigasayo ciidamadii dargiga ee 1977 ilaa intii dambe ee dagaaladu socdeen saraakiishu u dhintay oo dadkii Soomaaliyeed taariikhdooda hortooda loogu horburburinayo laguna faantamayo in magaalada Jigjiga korkeeda looga dhisi taalooyin la xiriidha saraakiishii dargida ee looga waxay tacaddi iyo dib u geysteen guud ahaan ummadda Soomaaliyeed balse aad aragtaa adigu mashruucaas iyo kan tamartaba bismillaahir rahmaanir rahiim waan salaamay dhamaantiin dadkeena daawanaya kugu xidhan waan salaamaya salaan kadib walaal labadan qodob waa laba qodob aad muhiim ah mid walba u baahan yahay faafahintiisa qodobka koowaad haddaan ku horeeyo tamarta qaybta leedka ee xadhigga laga jaray arrintaas hawshaasi arrintay xambaarsantay ma aha kaliya in la inaga dhacay dhulkii ma aha kaliya in la inaga dhacay sharaftii aan lahayn ma aha kaliya in dadkeenii la laayo la xasuuqay xataa ganacsigeenii iyo dirkan mashruucaas waa mashruuc deegaanka Soomaalida ku yaala waa mashruuc shirkad barayfada oo Oromo leedahay ay gacanta ku hayso Triple B baa mashruucaas lagu galay Triple B markaan ku leeyahay waa shirkad Oromo ka socota oo dhulka lahaansho u bixisay fiiri dhulkii deegaanka Soomaalida ayaa shirkad Oromo ikraynaysa maxaad u malaynaysaa heerkan taagan maanta cid og ma jir shirkad Oromo ah yaa lahaansho dhulka uga kiraysa shirkad Imaaraada oo Imaaraadka laga leeyahay saddex shirkadood baa ku shirkooday marka shirkadda Oromada ee Ethiopia ka socota shirkadda Imaaraadka iyo bangiga development ee African Development Bank la dhaho saddexda Triple B ba horta mashruucaas investmentigiisu galay waa mashruuc laga iibinayo leedkiisa Ethiopia Electric Utility look hal qof oo Soomaali kama shaqeeyo hal qof oo Soomaali mas'uul kama aha dhul Soomaaliyeed baa laga fuliyay liisanka dhulka la kireeyay waa 50 years way cidda kireeyay Soomaali maaha waa Oromo waxa ku dhib waxaad la yaabaysaa markaad aragto agreementiyada socda dhul Soomaaliyeed oo dad Oromo kireynayaan ama dad Xamaari kireynayaan markaad aragto waad la yaabaysaa waxaasoo dhan dawladda kuwan maqaarsaarku way ogyihiin ayaga dad qariyay bal waxa laga yaabaa shirkadda Oromada laftigooda inay qayb ka yihiin way dhici kartaa ma ogin inagu maanta laakiin waa mashruuc ay ku baxayso intaas milyan oo dollar way kana soo xaroonayso intaas milyan oo dollar shaqaalihiisa kaliya 3000 above mareeyashiisu maanta waxa ahayd inay Soomaali noqdo hatta hadii wax laga faa'iideeyo inay Soomaali ka faa'iideeyeen mashruucaas tamarta oo ninka maamulkii Soomaali noqdo dhulka kiradiisa Soomaali la maanta dhul Soomaali ku yaala kiradeeda Oromo qaadanaysa sodomir xumama dhimasho way waxyaabo laga dhinto way waan ka xumahay aad inaan u faahfaahiyaa ficnaaleed waqtigo igu yar waxaan u gudbi qodobka kale kaas waqti buu u baahan yahay halkay ka timiday sida loo galay cidda maareeyaha ka ay iyo shirkadani waxay tahay waxa soo information kaas oo waqti dheer buu u baahan yahay waxaan u gudbi arrinta taalada waa arrin sharaf dhacaw weligeed kama dhicin Ethiopia
إن لحصو مالك الصومالي لله ولقد أنت شو جرت حتى من قصة حيل مريم واحترام جريدتك الصومالي ذا يكون يعني إثيوبيا ما أنت أبي أحمد حكومة دي سوا حكومتك أنت وي إن لحصو تعالى لورد مالك الصومالي لحسوقي ودباتي أنت هذا الإجوي أي رك صومالي أنت سو أقبلين سو قاتين بجت كي لو ديس لها تعالى ذا لي ما دون دين تعالى وحندسنا مالكي صومالي اللي تشبي دقال كسبن سبن يو أحدث كل اللي دقال كسبن صومالي ما هين هاين صومالي ده هاين هاي سو أوياش صومالي دي إثيوبيا دقال كصومالي ده ما هين وحي العسوقة وحيابها قار مركا ولا المصطفى يودد كي يقوبا لبات هذا ما أنت إثيوبيا انجينير فيصل سفي عن ما انجينير فيصل وان كحنا هاي نظام خط با كيما نظام كفرسمه با انجينير فيصل ما لا سعوتها ما يمقش ما يمقلس وان كحما خدك ايغا خن رال هذا وان كحما هاي labada qodob baa sidaan ku sheegay Mustafa waa laba qodob oo u baahan faahfaahin dheeraad ah dadkeena in laga siiyo waxyaabo badan oo dadkeenu aysan ka warhayn baa jira oo la dhacay ganacsigeeni baa la dhacay dhulka xataa ma wax aan la inaga dhicin maanta ma jirto maanta wixii u dambeeyay la inaga dhacay sharafteeda inuu ku tad abi wuxuu soo dhigtay wiidi waxaan dhisayaa maalkii Soomaaliya aan laay xusa xataa ma cabsanay wuxuu leeyahay Soomaaliya inta soo ururtaan xusa maalkii leedin laay waa tamir xumo weyn waxaan loo dul qaadan karaa maaha oromadu waxa ay wadana waxa leeyahay oromo afka ay kugu dhunkatay kugu qaninta waa mahma oromo afka ay kugu dhunkatay kugu qaninta way anu inta soo jeer baan ka hadlay dagaraha abi ahmed xukuumadiisa waxay wado waxaanan rajaynayaa dadkeenu maanta inay ka baraarugsayn alxamdulillah waxaan ku faraxsanahay soo koob dadkeenu ka baraarugsan yihiin waanan soo gabagabeynaya waa mahadsantahay walaal adaa mudan waan la socdaa xogo badan oo faahfaahsan baad haysaan qof walba oo dad khibrad u leh khibro waxaanu idin soo xulanay waxa weeye inaad khibrad badan u haysaan xogaha iyo waxa qodobadan aan ka hadlayno in diiradda saarayno daraasaad in aanu waqti badanna aad baad u mahadsantihiin inaad waqtigiina qiimiga noo soo horteen weliba aad waqti soo geliseen intaanu daraasaad idin soo diro inaad daraasaad ka soo shaqaysaan dadka Soomaaliyeed aad waqti siyaasadeed iyo waqti cilmi baaris ba aad gelisaan